السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي ku xiran janalka mar kale soo dhawaada aad iyo aad u mahadsantihiin. Waxaan rabaa inaan idin kula wadaago Iran iyo Mareykanka waxa la leeyahay hadda heshiis inay gaaraan ayay u dhow yihiin. Wada hadal 30 maalmood soconaya ayaa lagu heshiiyey Iran in ay furto marinka Hormuz, Mareykankuna go'doominta uu saaray dekadaha Iran in uu qaado. Marka waxa la leeyahay waxa laga yaabaa in wada hadal la gaaro walow xaaladdu ay isbedeli karto. Mareykanku waxyaabaha ugu muhiimsan oo wada hadallada oo doonayay waxa kamid ah in Iran aysan nuclear yeelanin. Iran arrintaasi aad ayay uga soo horjeedaa. Ujeedada dagaalka Mareykanka iyo Israa'iil ay ugu qaadeen Iran ayaa waxay ahayd in Iran ay qarka u saaran tahay in ay hub nuclear ah samaysato. Arrintaasi waxaan ognahay sanadkii hore bishii 6 in goobihii ugu waaweynaa ee nuclearka Iran Mareykanku uu duqeeyay gaar ahaan diyaaradaha B2ga oo gantaalo Mareykanku uusan weligii hore u isticmaalin oo bunker busters la yiraahdo kuwa dhulka hoostiisa buuraha burburiya inuu adeegsaday. Haddaba nuclearki Iran Mareykanku ma baabi'iyay sida uu sheeganayo mise weli waa sidiisii. Arrintaasi telefishinka CNN-ka ayaa warbixin kooban ka sameeyay oo aan doonaya inaan idinla wadaago. Arrimaha ugu muhiimsan ee wada hadallada Mareykanka iyo Iran salka waxay ku hayaan Iran uraniumka ay haysato oo ay bacrimisay sidee laga yeelaya. Arrimahaas oo idil ayaan idinla wadaagaya balse marka hore soo dhawaada. Laba qodob oo muhiim ah. Regime change wax la yiraahdo in hoggaanka Iran gabi ahaanba la bedelo oo sida muuqatana hadda isbedel weyn oo san ka muuqan marka laga reebo hogaamiyahoodii oo 86 jir ahaa in la bedelay wiil da'yar oo waliba luqadda Ingiriiska si fluent ugu hadlana lagu bedelay in isbedel kale oo weyn oo san muuqanin. Laakiin qodobka kale ugu muhiimsan wuxuu ahaa in Israa'iil ay Mareykanka ku cadaadinaysay in Iran ay qarka u saaran tahay inay hub nuclear hesho. Arrintaasi ayaa waxay tahay midda Mareykanka ku qasabtay in dagaalkan uu Iran la galo. Haddaba hubkaasi nuclearka Iran uraniumki ay bacrimisay waxa la leeyahay weli sidiisii ayay u haysataa. Waxyaabaha wada hadalka marka hadda salka uu ku hayo ayaa waxa ugu muhiimsan laba qodob. Furitaanka marinka Hormuz iyo sidee laga yeelayaa uraniumka ay Iran haysato oo qarka u saaran in hub nuclear ah laga sameeyo. Waatii dhowr jeer Mareykanku uu soo jeediyay in iyaga lagu soo wareejiyo uraniumkaas Iran waa diiday in wadan kale oo saddexaad la geeyo Iran waa ay diiday. Hadda marka waxa la leeyahay xoogaa isfaham ayaa jira. 30 maalmood oo wada hadal ayaa lagu heshiiyey. Iran waxay furaysaa marinka Hormuz, Mareykankuna waxa uu qaadayaa go'doominta uu dekadaha Iran saaray oo aysan gali karin wax maraakiiba oo aysan ka soo bixi karin. Hadda waxa la leeyahay xitaa shalay markab iska dhigatiray digniinaha oo Iran ay leedahay digniinaha ciidamada Mareykanka ee go'doominta ku hayo ayay waxyeeleeyeen kadibna gacanta ayay ku dhigeen. Marka hubka nuclearka ayaa muhiimadiisu ay tahay marka uraniumkaas. Madaxweyne Trump wasiirkiisa dagaalka, wasiirka arrimaha dibadda iyo mas'uuliyiinta kala duwan ee dowladda Mareykanka iyo kuwa Israa'iilba waxay ku celceliyeen in hubkii nuclearka Iran la baabi'iyay. Bishii 6 ee sanadkii hore waxaan ognahay diyaaradaha B2ga Mareykanka in 3 goobood oo waaweyn oo Iran nuclearka ay ku sameynaysay ay weerareen. Waa Isfahan, Natanz iyo sidoo kale Fordo. Marka goobahaasi waa goobaha uraniumka isteejyada kala duwan uu marayo lagu marsiinayay sida warbixinta soo socota aad ka arki doontaan. Mareykanku marka waa ay duqeeyeen. Hubka ay isticmaaleen waxa la yiraahdaa CPU waa bunker busterska. Goobaha dhulka hoostiisa waxyaabaha ku jira inuu burburiyo ayaa loogu talagalay. Mareykanka xitaa nafsad ahaantiisa waa uu qirsan yahay in uraniumki gantaaladoodu aysan gaareen. Burburka qaybta kore ayaa burburtay laakiin in uraniumka uu bad qabo. Wararka qaar waxay sheegayaan Iran inayba kala sii baxday uraniumka ka hor intii aysan duqeyntaasi dhicin oo la arkay gawaari waaweyn oo uraniumka halkaasi ka daabulaysa. Trump marka dhowr jeer waxa uu ku celceliyay waan burburinay hubkii nuclearka. Haddana waxa uu leeyahay uraniumka Iran ay bacrimisay waa in la ku soo wareejiyo ama wadan saddexaad la geeyo. Marka halkaasi waxa ka muuqanaya in Mareykanku uu og yahay in uraniumki Iran uu bad qabo. Trump hadalkiisii ugu dambeeyay oo shacabka Mareykanku u jeediyay oo dagaalka Iran uga hadlayay oo Oval Office-ka uu ka jeediyay 1 bishii Afraad ayuu ahaa. Hadalkan ayuu yiri oo ah in goobihii nuclearka Iran ay burburiyeen laakiin aysan Iran u ogolaanaynin in ay tagaan goobahaasi oo ay galaan. Waxa uu yiri satellite-yada ayaan kala soconaa haddii dhinaca goobahaasi ay u dhaqaaqaan waa Fordo, Natanz iyo Isfahan
gantaallo ayaan la beegsanaynaa waana burburinaynaa cid kasta oo isku dayda inay gasho. marka macnaheedu waxay tahay Mareykanku inuu og yahay in uraniumkii weli meeshaasi dhulka hoostiisa uu ku jiro, Mareykankuna inta uu tago uusan soo qaadan karin, Iiraanna ay u diidayaan in ay gasho halkaasi oo uraniumka ay soo qaado. xitaa waxaa hadda la leeyahay Iiraan hadda bishii afraad ee lasoo dhaafay waxaa la arkayay gawaari halkaasi tagtay waaweyn oo xamuul ah oo loo malaynayo uraniumkii inay soo qaadeen. xitaa ammaanka ayay kordhiyeen, goobo lagu baaro dadka ayay ka sameeyeen meelaha la galayo, godadkiina waa ay dabooleen, tarnaladii dhulka hoostiisa la galayayna afka ayay ka dabooleen, sida warbixinta soo socota aad ka arki doontaan. marka waa kan madaxweyne Trump bal ila daawada hadalkii ugu dambeeyay oo Oval Office-ka uu ka jeediyey oo uu leeyahay waan la soconnaa dhaqdhaqaaqa goobahaasi Iiraan inay galayso iyo in kale haddii ay u dhaqaaqdana gantaalo ayaan la beegsanayn. The nuclear sites that we obliterated with the B-2 bombers have been hit so hard that it would take months to get near the nuclear dust, and we have it under intense satellite surveillance and control. If we see them make a move, even a move for it, we'll hit them with missiles very hard again. marka muhiimaddu waxay tahay Iiraan waxaa la yidhi hub nuclear ayay qarka u saarneed inay samaysato. Mareykanka iyo Israa'iil waxay yiraahdeen waan burburinay, haddana weli waxa ay leeyihiin Iiraan uma ogolaanayna inay hub nuclear samaysato. taasi macnaheedu waxay tahay in Israa'iil iyo Mareykankuba ay og yihiin in uraniumkii Iiraan weli ay sidii u haysato, haddii faraha looga qaadana ay halkaasi ka sii wadayso in ay uraniumkeeda ay sii samaysato. xitaa waxaa jirta jaamacad la yiraahdo Malik Ashtar University oo ku taala bartamaha Tehran oo ah goobta lagu horumarinayay hubka sida aadka wax u gumaada oo nuclearku uu ka mid yahay. bishii March ayaa sanadkan hadda bishii saddexaad ayaa Mareykanka iyo Israa'iilba ay duqeeyeen, marka waa ay burburiyeen goobaha uu ka bilowdo samaynta hubka nuclearka ayay jaamacadaasi ahayd. marka warbixintan uu CNN ku sameeyay, CNN-ka maalmahan Mareykanka ayuu si aad u daba dhigtay. waxaan ognahay 2 toddobaad ka horna inuu soo duubay sida loo burburiyay saldhigyadii Mareykanku uu ku lahaa bariga dhexe, gaar ahaan wadamada Khaliijka oo ilaa iyo 16 iyo khasaaraha Mareykanka gaaray inuu yahay mid aad u baaxad weyn oo inta badan la qarinay. marka hadda warbixintan waxay nagu tusayaan Iiraan duqeyntii la duqeeyay bishii 6 ee sanadkii hore goobahooda nuclearka sida aysan saameyn weyn aysan ugu yeelanin, isla markaana Iiraanba ay macdantaasi meel kale ay geysato oo ay ku qarisay, welina ay hormarin karto uraniumna ay ka samayn karto. marka bal warbixintan kooban ila daawada. This university in central Tehran is considered by the US and Israel one of the very first stages in Iran's nuclear supply chain. It was struck in mid-March by the US-Israeli campaign, and it's one of dozens of sites across Iran we've been analysing to see how much of its nuclear supply chain has been wiped out. And the answer is not as much as the US and Israel would like. Some of the most important parts of this process, the stores of highly enriched uranium, may not have been touched at all. Let's start at the beginning of the supply chain. Alongside the research, the process starts at places like these, Saghand Uranium Mine, where the raw material, uranium ore, is mined. In recent years, Saghand Mine has expanded significantly. You can see widening pits, growing piles of earth, and diggers. We looked at recent imagery since the latest strikes and found no evidence of damage. In fact, from between the clouds, you can still see diggers operating at the site. So far, this indicates this stage of the nuclear supply chain may remain untouched. Next, the mined uranium ore is transported to production plants like this one in Ardakan. Here, it's converted into yellowcake, which is a type of concentrated uranium. We found this plant was substantially damaged in recent strikes on March 27th. An image taken the following month shows little change, suggesting the Iranians have not rebuilt this site yet. After this, the yellowcake is taken here to sites like this one in Isfahan to be purified and converted into uranium hexafluoride. And it's this one, this stage of the supply chain, that has caused the biggest headache for the US and Israel. Back last June, French outlet Le Monde found this truck visible in imagery taken just days before the strikes. These blue containers are likely carrying uranium into the tunnels, experts told CNN. Days later, these facilities were substantially damaged in Israeli attacks. You can see several buildings wiped out. Then, in early 2026, Iran covered over several entrances to these underground tunnels with earth, preventing people from accessing them. Further measures were taken this April when these roadblocks were put up in front of the entrances to the tunnels.
It could suggest there still remains something valuable down there. They were not, however, hit in the latest US-Israeli strikes. In fact, the US believes this too, and their demand to remove this uranium has been a key issue in the stalling peace negotiations. And finding out exactly how much is down there is central to determining whether Iran remains a nuclear threat. aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idin la sida